waxaa maanta magaalada Muqdisho ka qabsoomay kulan looga hadlayay arrimaha maqaamka caasimadda Muqdisho. kulanka oo ah mid wada tashi ayaa waxaa soo agaasintay wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya waxaana looga doodayay dardargelinta dhismaha maqaamka caasimadda iyo kaalinta kaga xusan dib u eegista dastuurka qaranka. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin oo horkacaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa doodda muddada dheer soo taagneed ee ah inay matalaad gaar ah helaan dadka reer Muqdisho si la mid ah maamulada dalka ka jira. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Zibriye oo ka hadlayay shirka looga hadlayay maqaamka caasimadda ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadka ku dhaqan Muqdisho ay ku xuquuq noqdaan bulshada ku nool gobolada kale ee dalka. waxaa runtii aad iyo aad ra'yi fiican u ahaa fursad muuqatana ah in ay isu yimaadaan wasaaradihii arrimahaas iyo howlahaas halbeegyadaasi ay ku kala daadsanaayeen, loo yeero dad badan oo nufuud ku leh arrimahaas, khubaro loo yeero, saaxiibadii Soomaaliya oo beesha caalamka loo yeero, baarlamaankii qaranka loo yeero. hadda maanta mowduuca aan ka hadlayna oo si gaar ah u khuseeyana maanta uu nala joogo gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaasna duqa magaalada Xamar. mowduuca maanta miiska noo saaran runtii muddana waa soo saarnaa, arrimo badan oo ku wareegsanana waa iska jiraan, laakiin waxaan shaki lahayn dadka ku nool Xamar inay ku xuquuq noqdaan Soomaalida kale waa dood meesha taala. sidoo kale wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ah mas'uuliyiinta kulankan ka qayb galay Saalax Axmed Jaamac ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in natiijo laga gaaro doodda la xiriirta maqaamka caasimadda. shirkani wuxuu daaran yahay, waxaan u maleynayaa muddo hadda laga joogo week in ka badan ayaanu halkan ku kulmaynay oo kula kulmaynay wasaaradaha kala duwan ee gacanta ku haya howlo masiiriya oo kuwaas oo saameyn kula dib u eegista dastuurka Soomaaliya. walaalayaal waxaynu ka dhageysannahay dastuurka Soomaaliyeed qabiil qoraalkiisii u horreeyey in la dhamaystiray 2012. maantana waxaynu ku jirnaa 2019 inta sano u dhaxaysa waad garan kartaan. dadka Soomaaliyeed intaa waxay inaga sugayeen in go'aan laga gaadho su'aalo kooban oo masiiri ah oo markaa dastuurka ka saari lahaa kumeel gaadh oo ka dhigi lahaa mid waara oo ay ku dhaqanto dowladda iyo dadkuba. ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish oo ka hadlayay shirkan looga hadlayay maqaamka caasimadda ayaa waxa uu ka dhawaajiyay magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan. waxa uu sheegay in aysan lahayn matalaad siyaasi ah. waxa kale uu sheegay in aragtida dadweynaha ku nool Muqdisho ay tahay in ay helaan xuquuq la mid ah kuwa dowlad goboleedyada, taasi oo ka qayb qaadan doonta dib u dhiska caasimadda iyo in magaaladu ay soo ceshato haybadii bariismaadkii caalamka ay ku lahayd sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. waxaan halkan idinku soo gudbinayaa aragtida ku aadan statuska ama maqaamka caasimadda Muqdisho iyo gobolka Banaadir. gobolka Banaadir wuxuu ka mid ahaan jiray sida la ogyahay 18 gobol ee dalka Soomaaliya uu lahaa. sidoo kale caasimadda Muqdishona waxay weligeed ahayd caasimadda dalka Soomaaliya. markii dalku uu noqday federaal oo loo dhigay qaab federaal ah, labaduba waxa ay waayeen mudnaantoodii aqalka sare iyo aqalka hoose. sidoo kale waxaa adkaatay in Soomaaliya ay salayso maqaamka caasimadda
bulshada muqdisho aragtiyooyinkeeda aan soo ururinay waxay tilmaamayaan rabitaan ah in muqdisho ay noqoto magaalo caasimad ah isla markaas state ah ama dowlad goboleed ah. aragtidaas ayaan si duuduuban ugu soo gudbiyey kelmadeydii. wabilaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaah. dadka degan gobolka Banaadir ayaa marar badan soo bandhigay rabitaankooda ah helidda maqaamka magaalada Muqdisho waxa ayna dalbadeen in xuquuqdooda la siiyo si lamid ah maamulada kale ee dalka ka jira.